dhacdo yaab leh ayaa la soo bandhigay sanadkan bilowga ah ee 2018 mukulaashan sawirkeeda aad u jeedo ayaa loo xukumay lacag gaaraysa $710,000 Mareykanka oo magdhow ah. mukulaashan ayaa loo isticmaalay xayeysiin sawirkeeda kadib markii sida la sheegay shirkadda sawirka isticmaashay ay ku xadgudubtay heshiis hordhaca oo ay la gashay mukulaashan iyo milkiilayaasheeda. shirkadda mas'uulka ka ah mukulaashan oo lagu magacaabo Cusub Limited ayaa dacwad ku ogtay shirkadda samaysa bunka lacabo taasi oo markii hore lagu la heshiiyay in sawirka mukulaasha ay u isticmaasho bunka qabo oo kaliya balse waxay u isticmaashay alaabo kale oo dheeraada. mukulaashan oo lagu magacaabo tartar sauce ayuu sawirkeeda aad u baahay sanadii 2012 waxaana aad loola dhacay shucuurta murugada leh ee wajigeeda saaran. sanadkii 2013 shirkadda waxyaabaha lacabo ee Grande oo ay wada leeyihiin wiilga aabihiis oo kala ah Nick iyo Paul Stanford ayaa qoyska mukulaashan leh la galay heshiis ku kacaya ilaa iyo $150 milyan Mareykanka si sawirkeeda la yaab kale ee murugada muujinaya loogu dhajiyo bunka ay shirkadoodu samayso. shirkadda Grande ayaa iyaduna dhankeeda ka furatay dacwad ka dhan ah qoyska mukulaasha waxaana ay ku eedeeyeen in sidii lagu heshiiyay dhankooda aysan soo bixin waxyaabaha qaar. mukulaashan bisadan ama yaanyuurtan oo 6 sano jirta ayaa milkiile ka ah shirkad magaceeda lagu qoray iyo waliba agab kale. waxaa xitaa jira aflaam ay tishay mukulaashan yar ama bisadan iyo bandhigyo telefishin oo ay ka soo muuqatay. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo dhageysiga barnaamijka kooban ee ku saabsan bisada. waxaad kala socotay channelkeena Dero Films. ku soo biir ama subscribe channel si aan kula wadaagno muuqaallo, sawirro iyo codad ku cajab geliya hadduu eebbo idmo.